magaalada Buuhoodlana waxaa lagu soo dhaweeyay saraakiil iyo ciidamo la sheegay inay ka soo goosteen ciidamada Somaliland. magaalada Buuhoodle wararka naga soo gaarayana waxa ay sheegayaan in halkaasi si weyn maanta loogu soo dhaweeyay saraakiil iyo ciidamo la sheegay inay ka soo baxsadeen ciidanka Somaliland oo ay horay uga tirsanaayeen. dadweynaha deegaanka ayaa isu soo bax ay ku soo dhaweynayaan ciidankaasi waxa ay ka sameeyeen gudaha magaalada Buuhoodle iyo dibadda magaaladaasi oo la sheegay in looga hortagay halkaana si weyn loogu soo dhaweeyay. haddaba wariyaheena magaalada Buuhoodle Cabdiraxmaan Soomaali ayaa warkan inoo soo diray. saraakiil iyo cutubyo hore uga mid ahaa ciidamada maamulka Somaliland isla markaasina ka soo goostay ayaa soo gaaray magaalada Buuhoodle. ciidamadaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Buuhoodle iyadoo dadweyne tiro badan oo ay ka mid yihiin Ismaaciil Qaali iyo waxgarad kaleba ay kaga hortageen saraakiishaasi meel ka baxsan magaalada Buuhoodle iyadoo kadibna loo soo galbiyay dhanka magaalada. saraakiishan iyo ciidamadan ka soo goostay maamulka Somaliland ayaa waxa ay ka tirsanaayeen ciidamo dhawaan fadhiisina ka sameystay magaalooyinka Welwel iyo Balihadha iyadoo markii ay soo gaareen saraakiisha iyo ciidamadani magaalada Buuhoodlana gacmo furan iyo caleemo qoyan ay ku soo dhaweeyeen dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Buuhoodle. saraakiishan ayaa waxaa ka mid ahaa taliyihii ciidamada aagga bari ee maamulka Somaliland Mustafa Galaal. waxaana ugu horreyn wax ka weydiinay waxyaabaha ku kalifay inuu ka soo goosto ciidamada maamulka Somaliland isla markaasina uu soo galo xoogaga ciidamada jabhadda SSC. حسوق اللوكس كها سكون بالعراق وهذا ما تضاف كي marka wala in kari waayay waxa ka socdo wadanka. dhanka kalena sarkaalkan ayaa waxa uu baaq u jeediyay saraakiisha iyo ciidamada kale ee ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn isla markaasina ka tirsan maamulka Somaliland isagoo ugu baaqay inay iskaga soo baxaan oo ay dadkooda u yimaadaan. waxaan soo jeedin lahayn sharafta inay ka yimaadaan maadaama maanta nadina aaminay waxaan soo jeedin lahayn dadkooda yimaadaan adeecdu shaqeynayaan dadkooda u shaqeeyaan iyo dalkooda dadkooda u naxaan waana degan cadaawada xasuuqa ku hayo dadkooda nasiyan. arrintan ayaa waxa ay diilo weyn gelisay dhammaanba bulshada gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn iyagoo saraakiishani markii dambe meel fagaara ah ay kala hadleen bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Buuhoodle. sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan hoggaanka SSC iyagoo ugu baaqay inay mas'uuliyiinta ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ee ku kala sugan magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa in ay ka fakaraan aayaha iyo mustaqbalka dadkooda. soo dhaweynta saraakiisha iyo ciidamadan ka soo goostay maamulka Somaliland oo muddo saacada soconaysay ayaa sidoo kale waxay dadweynihii ka qayb qaadanayay halkaasi ay ku soo bandhigeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo heeso kala duwan. saraakiisha iyo ciidamadan ka soo goostay maamulka Somaliland ayaa waxa ay ku soo beegmeen iyadoo dhawaanba ay socotay habqanka ciidamada ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ee ka soo kala goosanaya maamulada Puntland iyo Somaliland kuwaasi oo ku soo biiraya xoogaga jabhadda dib u xoreynta gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Cabdiraxmaan Soomaali TV-ga caalamiga ah ee Universal magaalada Buuhoodle.